شرفت له رئيس الوزراء وحكوا عطرايا إن نوصل دايم ويرشنا والله العظيم هاد ودبعت سنة ويرشنا وأباهنا ست عرور ولا من أفر عرور ولا مثل ولا واترب بدين ما كوبي كرات إن ويرشة عفس إنه وفر يام بليز أفر إلى 9 أنا دبعت أكو قبل مركب مدحوينها يو حس على خير وحق بصرة آد بقى خير يسرها إن ويرشة نوصل دايم الرحيم أنا ومقعي سارة حاجية وحان كعصنا يا دولة مدحوينها عبد الله فرماجة يحس على خير دولة النبض إن محل لها إيش 6 ويل أو شيء شرس لغا كينا وودن كحال سنة جوغان إن ويلشاس نولسو دايو وعفس نوغلا فيديو وايو ويلشاس 5 سنة ودن شيء كسو دبتودين هدانا إني ودن كودي هو كسي دبتودان wax laga fiican yahay وهيستا دولة وحان كعدسنا يا بليز ويلر بدن ilmahooda aan arkina ku jiro mid 13 caruura ku jiro mid asagoo hooyadii caloosha ku jirta aan cunugiisa arkina ku jiro siyaabo badan ay ugu kala jiraan kuwa hooyadood ayaga u ahaayeen nolol oo xoogooda haystayna ku jiro marka please dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa oo sharafta leh 13 kaas wiil in cafis loo fidiyo waayo wadankooda hooyo inay ku dhibtoodaan ayagoo wadan shisheeye laga keenay والله بلا wax laga xumaado waa insha Allah marka dawladda sharafta waxa ka codsanayaa madaxweynaha iyo xasan cali kheyre in cafis ay u fidiyaan wiilashaas oo dambi la'aan oo isla wadan shisheeye wadankooda inta laga qaatay la iskaga heestay oo dawladeen markaysa qabsatay wiilashaas wax dambi waa ku waayeen xaqaysiiyeen wax badan ay muhiisiyeen aniga xogtooda ahaay cadeemadooda ahaay aan wax kasta aan ogahay marka waxaas hadda dib ugu manaqanayo laakiin dawladda sharafta leh waxaan ka codsanayaa maadaama dalkooda hooyo ay keeneen in ay noo soo daayaan waayo hooyaashooda u baahan aabayaashooda u baahan dadkooda u baahan ehelkooda u baahan ilmahooda u baahan kuwaana ilmahooda arkin oo maalin kasta weydiinayaan aabaheen aawe hooyadood aan la furin aan la qabin ku jiraan marka dawladda sharafta leh waxaan ka codsanayaa yaa please wallahi dhibaato badan jirta adinka dareemi karin dad badan oo hooyo iyo aabooyin oo wiilashaas xoog ayaga u ahaayeen ku jiro u shaqeynayeen oo argoosato ugu shaqeynayeen wiilashaas wiilo dambi leh oo qoryo weligood qaatana ma ahan marka dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa in wiilasha cafis ay noogu fadhiyaan please 4 ilaa 9 anaga dhibaato ku qabnaa xabsi Soomaaliya lacaga loogu diraa meeshaas wax la arkaa loogu wicsan marka madaxweynaha iyo xasan cali kheyre waxa ka codsanayaa aad baa u qiireysanahay in wiilasheena noola soo daayo waayo dadkooda u baahan ehelkooda u baahan ilmahooda u baahan 13ka maxaa la dhahay isha wiilal kuwa Buntland ka yimaada kuwa Galmudug ka yimaada kuwa magaalada Muqdisho ka tagay waa wiilal dhalinyaro oo dadkooda u xoogsanay nolol u raadinay ee dadkooda ku tiirsan yihiin u shaqeynay haddana qaarkood cad ay yihiin waalidiintooda ee u baahan yihiin ilmahooda habeen iyo maalin ay oynayaan ilmahooda yararka u oynayaan oo naagahooda u baahan yihiin ku jiraan kuwa aan iska fasaqi karin ilmihii yarariska aan nin kale aadi karin ku jira marka dawladda sharafta waxa ka codsanaynaa isbitaal madaxweynaha waxaan ka codsanayaa sanadka cusub dartiis sanadka dhashay oo ay ku dhow yihiin bisha dambe sanad guuradoodii labaad in ay u cafiyaan ee cafis u fidiyaan dalkooda hooyo wiilasha joogaan wiilashu xagee ku xirnaayeen oo laga keenay wiilashu waxay ku xirnaayeen shisharsa laga keenay ku xirnaay maxaa loo qabtay marka burcadbadeednima lagu qabtay burcadbadeedna ma ahayn dawladda Seychelles ma qasna ku xirnaayeen dawladda Seychelles waxay ku xirnaayeen 5 sano ma la xukumay lama xukumin xukun la'aan ay ku soo baxday dawladda Soomaaliya soo waday goormee la keenay wadanka sanadkii xoogaha joogaan xagee ku xiran yihiin xabsiga dhexe Soomaaliya Soomaaliya markii la keenay looma sheegin miyaa in wax siideysma ah iyo looma sheegin waxay u xiran yihiin sifo sharci darro wasiirkii hore arrimaha dibadda asaga saxiix ka soo qaaday wadankiina hooyani la geynaa oo dhahay asaga og saxiix oo ka qaaday wasiirkii hore arrimaha dibadda la casilay magaciisa I don't know hadda waa hilmaamsanahay magaciisa muxuu ahaa
يوسف جراد يوسف علي يا يوسف جراد هذه asagaa saxiix ka qaaday asagaa dhaa wadankiina hooyaani la geenaya inkastoo dawladihii hore oo maxaa la dhahay isha ka horeeyay xasan sheekh iyo xasan sheekh shariif iyo u imaadeen dad badan ra'iisul wasaarayaal badan oo arrimaha dibadda u imaadeen waxna u qaban waayay inta been iyo nuxli u sheegayaan kan horta Yuusuf Cali Garaad keenay wadankooda hooyo saxiix uu ka soo qaaday laakiin saxiix uu ka qaaday wiilashu waraaqaha cadeynta ila wadamada Yurub annaga aan ka imaanay qofka markii warqadaas saxiixaysa wada reason qoraal ku qoran qoraalkii markii lagu macneeyo ka bacdi ba iska saxiixaysa hatta la iska saxiixo waraaqaha warqadaas saxiixaysidna waa ina koobigeeda haysataa marka ilma warqad ay saxiixeen ayna aqoonin la iska soo wada wadankiina hooyaan la geeyna la dhahay iska imaadeen wadankiina aan la sii deynin xabsi iskaga sii jiraan wada reason xabsi ugu sii jiraan hatta ma yaqaanaan warqad laga saxiixo ma hayaan wiilashu tiradooda waa imis waa 13 wiil weeyaan markii la soo deynayo oo si shilis laga soo doonayo ma loo sheegay oo markii la wadankii aa leedin celinaya ma in xuriyadoodii la siinayo loo sheegay ama markii wadanka la keenay xabsi la gelinayo loo soo sheegay ma loo sheegin in xuriyad la siinayo in xabsi la geenayo waxba looma sheegin bas saxiixa laga qaatay wadankiina hooyaan la geenayo saxiixa la waliba wiila ka haramay idin raacayo wadankii hooyo arin hada aaday wadankeyga hooyo anoo sharaf iyo nidaam ku aadayo inta halkaan ka taga Soomaaliya inaan ku sii dhibaatoodo ma rabiyo wiilkaas uu ka shaqaystaa shirkad xurriyo ku jooga uu baxa xabsi kuma jira waa xabsi uu ka baxa free way maalintii oo dhan habeenkiina uu soo galaa meesha uu ku jiro wuuna shaqaystaa asagoo wadan shisheeye jooga kuwii dalkooda lagu soo celiyay hooyo joogana xur ma aha dirishad baa laga arkaa lacag baa loo geena cuntada waa lagu canaada marka dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa systemka xabsiyadana inay wax ka bedelaan maadaama dawladdan dawlad wadanka horumarinaysa ay tahay ma sha Allah oo wadankii nabad iyo nolol u sameynayaan wadanka horumar badan ay gaarsiinayaan marka waxaan ka codsanayaa xabsiyadana aad inay u fiiriyaan dawladdan Soomaaliya inkastoo hadda shaqo wax ay u sameynayaan laakiin still wali wax badan baa ka qaldan intaad ka warqabto wiilasha hadda xabsiga dhexe ku xiran kuwa xanuunsan ma jiraan way xanuunsan yihiin kuwa xanuunsan dhakhtar ma helaan daawo ma helaan waxay ku haystaan lama arko oo nolol ah waxaan ugu baaqaa dawladda Soomaaliya sharafta leh dawladdan dawlad fiican waa ilaahay kheyr ha siiyo ilaahay meeshay wax ku wadaan si fiican ha u sii xoojiyo cadawga oo cadawyo badan bay leedahay ilaahay ha ka qabto marka dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa xasan cali kheyre iyo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo in ay wiilashaas u fidiyaan cafis waayo wiilashaan hooyo iyo aabbe ay xoog u yihiin qaarkood ilmahooda xoog u yihiin qaarkood hooyayaashooda cad ahaa sariir ku jiraan iska oynaya habeen iyo maalin oo wiilashooda ayaga xoog u duugan lahaayeen maanta koolkoolsan lahaayeen marka madaxweynaha sharafta leh iyo ra'iisul wasaaraha waxaa ka codsanayaa in ay noo soo daayaan wiilashana wallaahi alcadiim aad baa u dhibaataysanaa wiilasheena waa u baahanaa midaa 13 caruurna ku jiro mid 3 caruur oo leeyahay mid 4 caruur oo leeyahay mid 2 oo leeyahay waa tiro badan yihiin ma koobi kara hadda tiradooda cadadooda ilmahooda marka 4 ilaa 9 qaarkood ilmahooda way ooyaan marka please waa idin barayaa codsigeyga ilaahay in soo gaaro in sida ugu dhaqsiyaha badan aan ugu soo deysaan wiilasha السلام عليكم ورحمة الله